بسم الله الرحمن الرحيم بوقشدنا دي قلت معدين ساكا آدي آد بدو مهتسنتين waxaan u maleynayaa aragtida ay iga weydiiseen leedahay sidee baad u aragtaa korinta ay sameeyeen golaha guurtida qaranka ee ay u sameeyeen xukuumadda runtii waxaan u arkaa xigmad halkeedii dhacday ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني وحكمة halkeedii dhacday sababta oo ah qofka bani aadamka ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku qiimeeyay عملك أو سمينه عملك أو سمينه أيوب حمان يوناك لبو أبال مريا متى ولي ماده أنا بقول كنتي حقيقة كلا بنين وحنو أركا حكومة دمان تجرتهاي إن أي قبضتي وحقبض إن لوجو كوريا لبسنا إسكداي أي استهشوا in lagu siiyo 3 jeer oo isku xigtay in muxuu ahaa loo kordhiyo sababtoo ah wax qabadka ay qabatay way inuu ogeyn maalintii xukuumadani ay la wareegtay xilkeeda heerkii ay marayeen wadooyinkeena maanta waxaanu aragnaa inta mashruuc ee ka socota dalkeena ee lagu dhisay wadooyin waxaanu aragnaa dhismayaashii hay'adaha dawladdu qaabka ay u burbursanaayeen ee ay ahaayeen maantana waxa maragma doon ah inaynu aragno hay'adihii dawladda iyo wasaaradihii noocay og yihiin oo ay noqdeen heerka caalamiga ah waxaanu garan karnaa waxbarashadu waxaynu ognahay dadkii danyarta ahaa in ay gaareen inaan caruurtii loo dirin iskuulada maantana waxaynu aragnaa iskuuladeenii qaabka ay u camiran yihiin waxaynu aragnaa caafimaadka inta NGO inta ku saabsan muxuu ahaa meelo caafimaad ee laga furaya dalkeena iyo tulooyinkii ay gaadhay ee wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale ee ku shaqada leh ay ku sameynayaan waxaynu aragnaa darajadii ciidamadeena oo aan kala lahayn darajada ciidan oo alaf dhabarta ciidanku inuu kala sareynta ama discipliinka ciidanka waxa sal oo kala sareynta iyo in la helo darajo waxaynu aragnaa ciidankeenu maanta in uu leeyahay darajooyinkii ciidan ee loogu tala galay iyo discipliinka iyo asluubta ay heerka ay gaareen yaa qabtay xukuumaddan waxaynu aragnaa in muxuu ahaa la sameeyay oo la kordhiyay aad loo kordhiyay heerkii lacagihii aynu muxuu ahaa lacagteeni oo markii hore jeel ku jirtay oo ka baxaynin Hargeysa iyo agagaarkeeda maanta halkay gaarsiisan tahay meel walba waxaynu aragnaa horumarka guud ee ka muuqda dalkeena taas markaa waxay sabab u noqonaysaa in oo man lam yashkurin nas la yashkurillah qofka aan bani aadamka ku shukriyin qofka wax u qabta ilaahayna kuma shukriyo taasi waxa ay keenaysaa iyadoo aynu garanayno abaalkii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ku lahaa qarankan iyo ummadda reer Soomaaliland isagoo wasiir oo raaxaysanaya oo wax u baahnay duurka uu galay xoreyntii dalkan maanta wuxuu istaahilaa isagoo aan oran karo wax weeyaan waa mandeelihii Soomaaliland oo muslimna oo wanaagsan oo ka sii sharaf badan wuxuu istaahilaa in marar badan oo kale loogu soo celiyo arrinka waxaan uga hambalyeeynaa marka golaha guurtida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo marxalad kasta ee adag ee qarankan ku timaadaba Ilaahay iyaga sabab uga dhigay inay ka saaraan aqliga wanaagsan ee adeegsadaan taas ayaan uga hambalyeeynaa waxay yaani ka soo bilaabeen xilli aan garanayo oo runtii waqti igu horeeyay iyo waqti aan joogayba ah 1993 waxaan xasuustaa 5 bilood oo isku xigta waxaan kamid ahaa ergooyinkii ku sugnaa Boorame 5 biloodba waxaan garanayaa in muddada inta leeg ay muxuu ahaa loo samray go'aano wanaagsan soo baxeen ilaa maanta iyaga ku tiirsanahay waxa weeye waa mustambeedka aynu leenahay waa marjica ummadani leedahay cida wax ka sheegaysana waxaan leeyahay waqtigiina sugta waxaan kula talin lahaa ahzaabta iyo cida kale ee maanta ka soo horjeeday waxaan ku talin lahaa xilli badan inay noqoto laakiin kullu aatan qariib waqti yar weeye waxaad idinkuna noqon doontaan waa wax la arki doono imkana muddada yar waa inaad abaabushaan isu diyaarisaan qaabkii aad sida xukuumaddan u maleeyay in la gaari doono laakiin bal idinkuna in aad gaadhaan xukuumaddan iyo wax qabadkeedii darsi ka qaadataan oo macallin ay idin noqoto oo aad ku samirtaan oo ogaataan inta ka sii faa'iideysta ayuma ku talin lahaa waxa kale oo iyaduna jirta ummad waliba waxay leedahay maalmo ciideed maalmo waa maalmaha ciidda islaamka oo ka dhaxeeya muslimiinta oo dhan meel ay wada joogaan baa labadeena ciidood maalmana waa ciidul wadan ama ciid qaran oo xasuus gaar ah inaga madan ahmiyad gaar ah inoogu fadhida 60kii markii ay runtay la soo noqoshadii 19 bay noqotay
marka waxaan ku talinayaa muxuu ahaa dadweynaheena reer Somaliland inay ku baraarugsanaadaan oo ay u soo jeedaan oo ay ka qayb qaataan wasaaradda xukuumad iyo dadweynaba dabaaldega iyo xuska maalinta 18 May waxa kale oo iyaduna aynu aragnaa oo aynu garanaynaa wadamada jaarkeena ah dhibaatooyinka ka jira maalmaha ciidda iyo feestada waa la isugu soo dhex dhuntaa waxaan kula talinayaa dhammaan hay'adaha amniga ee dawladda dhammaan dadweynaha shakhsi walba guri iyo guud ahaanba in la feejignaado oo laga wada shaqeeyo nabadda oo ciddii aragta waxaan shaki iyo dareen uu ka yimaado sidii caadadu bay noo ahayd waa inaynu la soo socodsiinaa hay'adaha dawladda ilaahayna waxaan si qurux badan uga wada qayb qaadanaa ilaahayna waxaan ka rajeynayaa maalintaasi inay noqoto maalin nabad iyo wanaag iyo farxad inoogu dhamaata waqtigiisana insha Allah ta'ala in ku gaarno khayr iyo barwaaqo